Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ku soo dhawaada Sector Academy. Magacaygu waa Cabdicasiis Cali Nuur. Maanta waxaan ka hadlaynaa Introduction of Electrical Engineering. Electrical Engineering waxa aas u ah laba theory oo kala ah Electric Circuit Theory iyo Electromagnetic Theory. Marka labadooda ayaan midba wax ka taaban doonaa. Laakiin si deeply waxaan u aadi doonaa Electric Circuit Theory. Waxaa laga yaabaa Electromagnetic Theory inaan koorsada dhammaadkeeda aan taataabano, laakiin insha Allah waxaan si fiican u dhexgeli doonaa Electric Circuit Theory. Okay, definitions. Labadooda definitionadooda. Electric Circuit Theory waa isku xirka qalabyada ku shaqeeya korontada. Qalabyada ku shaqeeya korontada isku xirkooda waxaa la yiraahdaa Electric Circuit Theory ama Electric Circuit. Marka haddii lagu weydiiyo Electric Circuit maxaa waaye, waa isku xirka si fudud af Soomaali fudud waa isku xirka qalabyada ku shaqeeya korontada. Tusaale ahaan waxaa haysataa batteriya haysataa. Batterigu sida aan ognahay wuxuu kooban yahay plus iyo minus wuu kooban yahay. Batterigan halkaana waxaa haysataa laambada haysataa. Laambada haysataa. Batterigan iyo laambadan waa laba qalab ama laba shay oo ku shaqeeya koronto ku shaqeeya waa. Batterigu wuxuu baxshaa charge uu baxshaa. Charge-gaasina wuxuu siiyaa shay kale oo koronto ku shaqeeya. Sida darteed laambaduna ma shaqeyso ilaa ay hesho current iyo voltage inay hesho maahane ma shaqeyso. Sida darteed kan wuxuu hayaa voltage iyo current-gii kana wuxuu hayaa kana uu ku shaqeyn lahay. Marka ma kala maarmaan labadooda. Haddaad rabto marka inaan nalkan uu kuu ifo ama kuu baxo waxaa samaynaysaa labadoodii isku xiraysaa. Labadoodii baa isku xiraysaa. Labadoodii isku xiraysaa. Labadoodii isku xirta. Kan maxaa waaye marka? Kan waxaa waaye wires waa fiilooyin. Fiilooyin waaye. Tani waa laambad kana waa battery. Kana waa battery. Markii isku xirka qalabyada ku shaqeeya korontada waxaa loo yaqaanaa Electric Circuit. Marka intan waa kugu filan tahay faham Electric Circuit fahamkiisa way kugu filan tahay. Maxaa la dhahaa Electromagnetic Theory. Kaas waa saas aan ugu tagnay. Electromagnetic Theory maxaa la dhahaa? Electromagnetic Theory fiiladii hadda aan ku xirnay batteriga iyo isku xirnay laambada oo kala inta ku taasho. Fiiladan waxay wadataa korontay wadaa. Korontada ay wado electronic macnaha koronto oo dhan waxay ku shaqeysaa electronic. Marka electronic-gan ay wado waa minus soo ma minus ay wadaa. Marka shay kale minus-tu waxaa ognahay plus oo raadsadaa. Marka adigoo qof bini'aadan ah fiiladan taabtay intoo adoo plus ah fiiladan taabatay. Fiiladan koronto ku soo gudbinayso ma. Marka
eriyada ay korontada kasoo gudbi karto iyo ayada oo korontadii wada macnaha inta magnetkeedu uu gaarayo ayada waa magnetic field waayo tanay wadaa soo maaha waxay soo qabsatay balaasay soo qabsatay rabtaa iyo balaastan intii usoo dhowdahay macnaha intay kasoo qabsan karto spacekay kasoo qabsan karto saan oo kale ka dhigba ilaa meelahan ay kasoo qaban kartaa marka meeshan waa field soo maaha garoon ay agta soo maaha garoonkaas ay kasoo qabsan karto iyo ayada wax soo qabsanaysa falgalka ka dhexeeya waxaa loo yaqaanaa electromagnetic theory loo yaqaanaa electromagnetic intaasaa loo yaqaanaa marka qeexitaanka Englishka meesha ku yaala yowse waxa ku baqin gelin waa electric field waa naqana waa garoon waa inta ay kasoo qabsan karto waa meeshan aan goobada gelinay iyo magnetic field oo iyada koronto waday interaction kooda ka dhexeeya baa waxaa loo yaqaanaa electromagnetic theory marka intaas waxaa la yiraahdaa electromagnetic halkan ayaan kusoo gabagabeynaynaa cashirkeena maanta introduction-ka insha Allah waxaan xoogga saari doonaa electric circuit cashirada soo socda electric circuit ayaan wadi doonaa insha Allah electromagnetic xiisadaha ugu dambeeya ka dhigi doonaa insha Allah marka la socdo wanaagsan